madaxweynaha wafdi uu kaxeeyey oo wadanka Djibouti uu heshiis lagula soo galay Somaliland maamulka Somaliland heshiiskaas wuxuu noogu muuqday communique-gaas wuxuu noogu muuqday mid wada albaab ama dariishad furaya. Professor Ali maxaa marka la idinku qanciyay kooxdiina qaatumo ee Hargeysa iminka jooga nalagama qancin ayaan daradu waa taas dalbanaynay wafdigii meesha tegay bal noo sheegaan wuxuu heshiisku noqday laana Somaliland dalkoodii markay ku noqdeen iyo international community-ga waxay ka dhigeen in la ictiraafay in laba dawladood oo simani ay wada doodeen dadka dhulka u dhashay ee waqooyiga u dhashay ee midnimada Soomaaliyeed aaminsan ee beelaha kala gedisan ee waqooyi ka tirsan inay wafdiga ay ka mid noqdaan in ay lagala tashado shacbiga baarlamaanka waxa ku jira ilaa maxay ahayd waxaan u malaynayaa taloma 57 ama 58 reer waqooyi baarlamaanka ku jira mid quri kama raacin wafdiga arrimahana laguma soo daro midda kale lagu darayna waxay ahayd oo intaanu warsanaynana ah oo dawladayadii ay awoodi weeyeen inay ku dhaqaaqdo oo ku dhawaaqdo waxay ahayd midnimada Soomaalidu negotiable ma adiga cabasho ka gudbiyay oo saasi u muuqatay rabitaankaagu isaga uun baad damcaynaysaa u hadlaan arrintaas arrin taagan oo ilaa 1960 dawladnimada markii la hayay midnimadu ay timi arrintaas international conventions ka iyo heshiisyada qaramada midoobay ba ahayd AU-da ahayd Arab League ahayd Islaamiga mid walba mar walba arrintaas ku celcelinaysay oo wuxuu annaka naga diiday markii taas ay soo baxday uu leeyahay ana madaxweyne waa dhulka muxuu ahaa low yacdo ilaa raas Kamboni waa midnimada Soomaalidana waa taageersanahay too bloody late. dowladda federaalka Soomaaliya muddo 2 sano ah waxay madaxweynaha maamulka Jubbaland u aqoonsatay inuu sii ahaado Axmed Madoobe wallahi inay heshiiyaan waa habboonta inay waliba labada dhinac ka timaado oo waliba ka timaado xagga dawladda laano dawlad qaran baa meesha tan taala arrintan gobolada haysatana arrin Jubba kaligeed ku saabsan ma aha inuu hadaynan isyeelaynin arrintu Jubba Valley kaligeed kuma saabsan waxay ku saabsan tahay habka aynu isku xukumayno iyo hadoodilkan la dhisayo structure-ka meesha yaala muxuu yahay dastuurka waxa ku yaalana waa arrin inta ficilka laga arkayo maamulkana waa arrin kale waxaad moodaa dastuurka waxa ku yaala inuu yahay dadku maamulkooda inay iyagu soo dhistaan dawladda dhaxana ay ku taakulayso laakiin cid ku doodaysa sida Somaliland oo kale cid oranaysa waa go'aynaana ma jirto cid tiraahana anigu 100% waaba ka soo horjeedaa laakiin midda uun dhacday waxa weeye heshiiskan anigu isagoo qoran ma akhriin waxaan samoodaa hadday iyagu oo dawladdu aqligii iyo xirfadii iyo visionkii aragtidii dheereyd inay iyada ka timaado oo maamulka ay maamulada kaleba ay kula heshiiso saasay mudnayd ma dhicin haddayn dawladda Itoobiya iyo international community-gu khasbina ma suurtoobeen mudday meesha joogan oo la ismari waayay waxa la isku hayana waa wax generic ma aha wax Jubba Valley kaligeed ku saabsan games la isla ciyaaraya waa jiraan siyaasaduna games kama dhamaadaan qolyahan maxay ahay dawladdu siyaalo ay u rabeen haddii xitaa maamul uu meesha ka imanayo inay iyaga ugu muuqatay Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose inay noqoto geedo ayaan ka mid noqon geedo la raaciyo bay iyo bakool arrimaha aad moodo waxa yaab leh haddii cudurina hayo dhakhtar loo tago dhakhtarku wuxuu fiiriyaa diagnosis buu sameeyaa war dhibaatada qofkan haysa maxay tahay wuxuu eegaa cudurkan haddaan dawo intervention la sameyn maxay noqonaysaa trajectory-ga cudurkaas uu qaadanaya ama qofka dhibaatada uu keenayo
markaasuu prescription yidhaha saa iyo dawooyinka saa iyo saa la qaado ayaan darada innaka ina haysaa waxaa weeye dhibaatooyinka ina hor yaalla laguma dhiiranaya in laga hadlo qofkii ka hadlana waxaa oo arkayaa qof fadqalallo iyo dhibaato wada arrintan maamuladan laga hadlayo ee aada moodda inaan laguna dhiiranayn dhuundhuumashadu waa xuntahay dhabar ku muuqdaa bay soomaalidu tidhaha arrinta tan gameskan la cayaarayo wakhti badanna waa inagaga lumayaa laysnama khasbi karo marka waxay haddayba heshiiyeen falilaahi alxamd hadday iyaku inta la pressure gareeyey ay heshiiyaan anuu 100% waa soo heshiinayaa dowladda dhexe iyo madaxweynuhuna awoodo ay leeyihiin oo dastuurku u tilmaamayo waa jiraan kuwa maamulada la dhisaya ay leeyihiinna waa jiraan midda qure anigu aan ku nuuxnuuxsanayaa waxaa weeye waxa la rabo habka la rabo jubba in lagula dhaqmo waa in hiiraan lagula dhaqmaa waa in bay iyo bakool lagula dhaqmaa dowladda federaalka soomaaliya koonfur galbeed nin bay u magacawday hirshabeelle nin bay u magacawday galmudug sidoo kale markaa jubba valley miyaysan la mid ahayn dee ayaan darada meesha shiikhow taallaa waxaa weeye nin baan u magacawnay dowladdanu maxay tahay colonial government